السلام عليكم. maanta waxaan rabaa inaan sameeyo cookiga oo ciida labadan xabo subaga meesha aan ku haysta waa ii jeedin labadaas xabo subag wuxuu dhigmaa hal cup oo waxa waaye oo subag subagan isticmaal aan salt waaye cusbo dhan ma ku jiro hadaa qabin wax aan cusbo lahayn aa isticmaali kartaa subag aan cusbo lahayn marka saa idin sheegay bakeerigan uu dhigmaa labadan xabo subag hadaa dhalaalisid marka ma loo baahna inaad dhalaalisid waxaa loo baahan yahay asigoo saas u weyn inaa garaacdida loo baahan yahay marka insha Allah baaquliga hadda aan ku shubana si fiican oo fursada hadaa rabtiin inaad cookigan oo kale aad sameysin waxaa loo baahan yahay step by step inaad fiirsatid ma ahan yani hadaa mootisid wixii way ku wada dhaadhaafayaan si fiican ma arki kartid marka insha Allah waxaa loo baahan yahay si tartiib inaad fiirsataan labadii xabo subagaan qaaday waa u jeedin waa qasayaa hadda markaan qaso wax hal minute yani waxaan 2 minute ka badneena loo baahan yahay inaad qastid markaa dhameysid waxaa lagu shubaa halkii bakeeri oo sokor aan ku shubanaa burka hadhow aan ku shubanaa laakiin hadda sokortaan horumarnaa burkana 2 bakeeri iyo quarter waaye laakiin waa idin tusaa step by step vanilla aan ku shubtay qaandada yar waaye lambarada waa ka meesha ku qoran yihiin fiiriya insha Allah hal qaando yar waaye oo vanilla marka asigana hal daqiiqo aan ku haayo aan garaaco haddana aan rabaa inaan ku shubto waxyaalihii kale oo ii diyaarsanaa aan ugu talagalay inaan ku shubto marka mar walba waxaa loo baahan yahay subaga iyo sokorta iyo ukunta inay si fiican iskugu galaan yani oo iskugu garaacdid ilaa uu ka burburo sokorta marka insha Allah hadda waxaan ku shubanaa meesha ii yaalo hal xabo ukuntan kulliga ku wada shubaysaa jaalaha iyo cadka ha kala bixinin laakiin hal xabo ukun ka badan ha isticmaalin marka halka xabo ukun aa isticmaalaysidna waxaa loo baahan yahay inaa ku shubtid marka ukunta aa ku shubtid horta oo aa garaacdid aa diyaarisid waxaa ku shubanaysaa hal qaando oo yar oo baking powder ma ahan baking soda baking powder marka ku shubtid 2 cup oo waxaa ku shubaysaa oo bur marka meeshan waxaa ku jiro 2 bakeeri oo bur iyo hal qaando yariis oo baking powder waxaa noo dhiman bakeeriga yaraa oo burka noo dhiman laakiin hadda ma isticmaalay waxaan isticmaalaa waqtiga markaan qasaayo oo isku keenayo marka waa ujeedin size waa idin tusaaya meesha ku qoran yahay size-ka marka waxaa ugu talagalay markaan burka aan isku keenayo inuu ikaalmeeyo uu burku isku soo arwariyo maxaa meeshan subaga ku jiro iyo ukun burkii waa jilca ma aho marka waana garaacay mashiinkii aan ku garaacay marka waxaa loo baahan yahay inaa ka dhigtid 2 gabal markaa ka dhigtidna waxaa loo baahan yahay inaa isticmaashid bacda oo raashinka lagu dabooshto loo baahan yahay inaa isticmaashid marka jaraysid dhaxda ku kala dhufo yani soo 2 size يعني 2 kuus oo isku jin si uu kugu noqdo loo baahan yahay burka hadda kasir waa yari jilcan yahay laakiin insha Allah burkan saam lagu fidin karo mana lagu dubi karo in la sugo waayo oo subaga oo hadana mar labaad uu ka soo xarkago yani mar labaad uu adkaado marka waxaan soo qaadanaa bacda raashinka waa u jeedin yani 2 gabal hal meel ma ku wada ridaay labadooda waxaan ku kala ridaa 2 meelood aan ku kala ridaa sidii aan yani in labadu ay iskugu dhagin ahaana u yeelaya kan marka inta aan ku rido waa fifidinaa kisyar markaan fifidiyo aan ogaado inuu flat noqday waa jara markaan jaro aan si fiican aan u laalaabo haddana waxaan bilaabaa inaan kan kale aan sameeyo marka mar walba waxaad ku dadaashaa marka laabaysid inaa bacda kale sii kor saartid marka labada waa laalaabay fanideerkan galiye 4 saac oo ku jiro waa ka soo bixiyay qorigan oo jeedan kulli flower uu leeyahay marka fidinaysid waxaa ka soo baxaa fiyoreyaal yaryariisa kaaga soo baxaayo burka marka ani insha Allah muu isticmaalay waa idin tusayaale waa isticmaali kartiin hadii ay rabtaan inta waxaa iigu jiro burkan oo diyaarsan oo qasan oo loogu talagalay keega in lagu dabooshto waana jarjari kartaa cookie korkiis waa saaran kartaa keega ku sharxan kartaa waxyaalo badan aa ku sameysan kartaa hadaa reer Mareykan tihiin waxaa ka soo helaysin dukaanka Walmart waxaa ka soo helaysin dukaanka la dhahayo Joan meel badan lagu gadaa kareemadan u jeedin kan ma adkaanayo kan waa u jeedin ma adkaanayo kan hadaa mirisid magacaan ku qoran icing kan oo ku qoran waa adkaana asiko markaa qasaysa jileec waa markaa qasid meel ku shubtid isticmaashid oo kale oo cookiga banaanka ku dhaaftid cookiga waxa arkaysaa kordhan waa soo adkaana marka saxankan waxaan u diyaarsaday
cookigii marka aan fifidiyo aan saaro aan kusoo duban lahaa marka insha Allah waana adag yahay maxaa dhii 4 saacadood wuxuu ku jiro farinjeerka meeshan waxaa ii yaala geedahan aan soo gatay online kan ka gatay waxaa ku qoran ciid waxaa ku qoran shabado badan waaye geela ku qoran waxaa ku qoran lamp nalka marookaanka waxaa ku qoran shabada kacbada oo ku qoran يعني shabado badan waa waxaa loogu talagalay maalmaha ciida in la isticmaalo waa ujeedin laba nooc oo isticmaalan kartaa hadaa rabtid coffee-ga saaran kartaa marka coffee-ga cappuccino-ga sameystid saaran kartaa waa ku yani shabado banaan kor u yeela hadii kalena marka cookie waxaas sameysanaysa aad rabtid inaad isticmaashid color iyo waxaas waa u isticmaali kartaa laba shay oo isticmaali kartaa marka insha Allah hadda waxaan fidinayaa burki marka burka aad fidisid marka waxaa leedahay choice leedahay xagga marka goynaysid marka waxaa ku yaalnaan karo intaas oo wax yani goynayo cookie-ga flour haysan kartaa bir goynayo round ay qabnaan kartaa yani aad isticmaalaysid marka wax allaala waxa isticmaalaysid hadhow marka goynaysid burka adag oo ku dabooli lahayd keega mise cookie korkiisa saaran lahayd waxaa loo baahan yahay isla shabadii ina isticmaashid hadii kale laba shay kala nooc hada iskor saartid waxa wixii ma isku ekaanayaan waxay noqonayaan laba nooc marka cookie-gan waxaan isticmaalayo hadhowne markaan goynayo burka cad aan goynayo asigana waxaan isticmaalaa same shape si wixii isku mid inuu noqdaan markaan iskor saarayo marka adee yani ad choice-ka ada iskale hadaartid kulli hal nooc ka dhigan kartaa hadaa hadii kale waxaa ka dhigan kartaa nooc kale ka dhigan kartaa marka maadaama ani ay ii yaalaan intaas oo nooc oo geedka cookie-ga goynayo so waxaan ku fikiray inaan different cookies aan ka dhigo sidii ilmaha markay cunayaan ayagan ay happy u noqdaan inta hadda ii yaalo kuwan waxaa kala ii yaala ayagoo flower waxaa ii yaala ayagoo circle ayagoo round يعني inta soo shape ay yaala marka ani kuwana isticmaalay maadaama uu ciid yahay oo isku diyaarinayo waxaan isticmaalayaa noocyadan marka qaadaysid gacanta ma ku qaadi kartid uu ka jajaba marka waxa loo baahan yahay bir fidsan nooc nooc raba ha noqdo oo yani tartiib saa meesha aad u soo fujisid aad u saarto u jeedin wuxuu adag yahay burkan subagiya wali waxa qabow marka waxa loo baahan yahay si tartiib ina ugu qaaqaadid u saartid saxanka korkiisa marka waxa laga yaabaa kulli inay hal saxan ku noqdaan saxan weyn hadaa qabtid laakiin aniga saxan weyn ma qabis xunteeda waa yar yihiin marka waxaan ka dhigaa labo meel aan ku kala shuba laakiin foornada hal mar aan wada gelina insha Allah cookie-gan ilmaha aad ay u jecel yihiin especially maalmaha ciida waxay xisayaan mise ay dareemayaan inuu maalintooda yahay oo ciida ee muslimiinta ciidayaan ayagan ay qabaan wax ay sameystaan ay kusoo dhaweeyaan ciidooda sidii cookie-ga oo kale cookie noocyadan aan sameysanaa mid geel ku qoran mid kacbad saaran mid ciid ku qoran yani ilmiya waxa la rabaa in la xisiisiyo la kasiisiyo yani inuu yahay maalin ciid anakana aan celebration aan qabno aan isku diyaarino aan sameysano cuntooyinkan macmacaanka oo kale cunuga naftirkiisa asigana waxa uu ka soo qayb galaa uu kala sameeyna uu farxa wuxuu ogaana oo ciidiya soo dhow anigana hooyan kaalmeena mise aabaan kaalmeena mise qof allaala qofkii markaa sameynayo marka waxa loo baahan yahay mar walba cunugaaga inaa ka farxisida loo baahan yahay shape-kan hadda u jeedin iyo kan isku mid waay marka hadaan rabo geedahan inaan isticmaalo inaan shape-kaas isticmaalo waa halkaas size inaan isticmaalo waa sa aniga aanu isticmaalo midka ku qoran geelka iyo midka ku qoran kacbada iyo ciida iyo kuwaas ku qoran kuwa cad aan idin tusay hadaan isticmaalayo inaan isticmaalo waaye calaamada yani kan ugu weyn kan wax googooynayo midkaas ugu weyn hadii yaalo inaan isticmaalo waaye hadii kale
waxa waaye kala size uu noqonaa saan idin sheegay. Marka I don't know how many uu kasoo baxayo uu noqonaa. Marka labada dhinac waa isticmaali kartaa. Dhinaca oo flowerka oo kale uga go-an waa isticmaali kartaa. Dhinaca plain-kan waa isticmaali kartaa. Labada dhinaca rabtid waa isticmaali kartaa. marka aad isticmaalaysna burka cad asigana labada dhinac waa isticmaali kartaa. maxaa dheh isku jin waa isku size waa waxba ma ka halaabay. marka mar walba waxaan jeclahay walaalahayga si fiican inaan wax idin fahansiiyo, tartiib idin fahansiiyo, saa idinkana intaa baxdaan jikada gashaan ma rabi inaad shaqo isgelisaan oo wixii oo idin hagaagin. kaas ani aad iyo aad ugu xumaana. marka waxaan jeclahay wixii inaan step by step idin fahansiiyo, saa ani u fahmi aan idinkan idin fahansiiyo. wixii waa kana waa soo wada diyaari. foornadaan gelina 250 aan ka dhigaa 15 to 20 minutes. hadduu kuugu karin aa aragtid kukiga hoos dhan hadduu guduud ka noqonin ku hay 10 minutes kale, it's okay. meeshan waxaa ii yaalo kalaro badan. meeshan waxaa ku jira intaan kalar aa ujeedin aa ku jira boxkan dhexdiisa oo caagag yaryar wataan. saddexdaas bakeeriyaan soo diyaarsaday. waxaan rabaa hadda inaan icingkan oo aa ujeedin inaan garaaco oon qaso kalaro aan ku shushubto oon bacyo aan ku shushubto aan xirxirto saan u isticmaali lahaa. marka bacyada waa igu waaweyn yihiin waa ujeedin bacyada noocyo badan waxyaalo badan aan u isticmaalaa. marka insha Allah mar kale idin share gareena waxyaalaha kale aan u isticmaalo suu egyahay. marka waa jara markaan jaro aan isticmaala. laakiin hadda intaan jirin horta waxaan sameynaa kalaradii ani aan rabo inaan isticmaalo aan babaxsanaa 5 kalar aan rabaa. marka 3 mid kamid ah aan idin tusaa. hadhow 5 oo kalar oo asigoon soo diyaariyay insha Allah waa idin tusaa. marka bacda waa kala fureysaa bakeeriya soo diyaarsanaysaa. kalaradii waa kuwa aan soo diyaarsaday hadda, laakiin laba kala ka sii maqan insha Allah hadhow gadaalan idinka tusaa. kareemka aan isticmaalin kareemkaas waaye. kaas waxaan u isticmaalay waa adkaana wax yar kadib yacni waa adkaana. haddaa meel dhigtid oo kale buskudka kale aa kor saartid ma ka halaabay. buskudka kale kalarka kale ma ku dhagaayo. marka kulligood waxaan ku wada shubanaa bacyaan ku wada rabaa inaan ku wada shushubto oon diyaariyo. maxaa dheh markaa cookiga sameynaysid sida adiga rabtida u sameysanaysaa. wax allaale waxaa rabtid aa ku qoran kartaa. ku qoro magacaagii, ku qoro sida haddaa cilaan maris aad taqaanid oo kale waxaa marsan kartaa intaasoo flower kala nooca aad marsan kartaa cookigaagii. yacni waxaa u sameyn kartaa waxyaalo qurqurux badan markuu yacni qofka uu cookiga arko uu dhahayo maasha Allah intuu cunin horta. marka inkastoo cookigan noocyadan hadda aan idin tusaa ay u badan yihiin ilmaha inay cunaan maadaama kalaradan ay jecel yihiin ilmaha, laakiin markaa sameynaysid maalinta ciida saxanka kamid ah waa ku saarnaan karaa waa kugu jirnaan karaa. hadduu aboo mise abaaye ku imaadaan guriga uu maalin ciid yahay oo ilmo la socdaan buskudkaas iyo xalwaas wuxuu ku fiican yahay qof weyn inuu cuno. laakiin haddii aa aragtid ilmo inay wataan ilmaha waxay ku ordayaan cookiga kalarada oo faniga waxyaalaha saarsaaran oo kale. hadda saan camal waxa hadda ani aan sameynayo ilmaha markaas waa anfaca. yacni waxay dhahayaan oh maasha Allah I got my favorite cookie mise waxaan cunayaa cookiga oo maalinta ciida camal aan cunayaa inay dhahan. marka hadda ana kalaradeeda waa kuwa soo wada diyaarsaday kulli intay ii wada yaalaan. hadda waxaan u baahanahay inaan qaado burkii hadda aan idin tusay. burkan waa diyaarsan yahay waa qasan yahay waxba ma ka maqno. marka waxaa loo baahan yahay hadda in la jarjaro insha Allah oo wixii dhan la diyaariyo loo baahan yahay. kalaradan dhinacan dhigana waxaan fidinaa burkii aan fidinaa. marka burkan hadda diyaar waaye fidis ma u baahno bis laakiin inaan aan si fiican aan meesha aan ugu fidiyo waa loo baahan yahay. maxaa hadii kale ma jari kari goosashaalka ay dhibaayo markaan gooynayo waa ujeedin waxaa ku jira kisto because roundka markii la wareejiyay waxa ka soo baxay calaamadahaas. marka waa ujeedin waxaan ku gooynayaa caagan cagaaran because of waxaan soo isticmaalay cookigan ku soo isticmaalay saa idin sheegay. haddii aan rabana geedihii oo ku qornaayeen geelka iyo calaamadii kacbadii waxaas hadaan rabo inaan isticmaalo waxaa loo baahan yahay same shape inaan isticmaalo. haddii aan rabin kan oo aad leedahay oo ani kan ma rabi waxaa isticmaali kartaa kan aan waxa ku shubay bacyaasha aan ku shubay creamka waa isticmaali kartaa. laaziman ma ahan kan ani hadda aan jarayo inaa adi isticmaashid maya ma ahan. haddaa haysanin it's okay waxaa isticmaali kartaa kalarkaas hadda boxka aan idin tusay ama any color adi guriga ku yaalo. waxaa isticmaali kartaa icingkaas isticmaali kartaa kalaraha ku shuban kartaa waa garaacaysaa bacda ku xirinaysaa. marka cookiga soo diyaarisid kora ugu shubaysaa waxaa ku daadaadinaysaa nacnac waa dhigaysaa waa qabooba hadhow ilmaha siinaysaa.
marka buskudka mar walba ha ahaado buskud qabow markaa foornada kasoo bixisid buskudkaaga ha kuu qabownaada buskud kuleel hadaa ku shubtid waxaan waa dhalaala waxaan sukar waaye waa kaa dhalaala wixii dhan aad sameysay kulli wuxuu noqonaa يعني وقت دمس وكان نقنا وقت جاء اسكسر دمسي وحنا ما تدن كداليسي أو كرفاديسي دن وحنا نقنا كل بيد على وكله marka saas u jirtid kan ku soo haray waa sidii adigoo sameynaysid oo kale biskuudyada kale laaziman ina aruurisid waaye oo dhinaca dhigatid banaan ha dhigin haduu shaqada kale uu ku dheer yahay ina bac ku dabooshid waaye maxaa haduu uu ka maro qabo bistabeel uu ka maro uu ka adkaana haduu adkaadane waxa faa'iido ma lahan marka waxa loo baahan yahay mar walbo marka aad sameynaysid kuukiyada noocyadan oo kale sheebkaagi inuu same noqdo saa idin sheegay hadda inta ani haysto waa kaas waa ujeedin nooc alla nooca adiga rabtid aad saaran kartaa marka aniga meeshan waxa ku wada jiro labada ciid alaabta isticmaal lahayd ciidan iyo ciida kala soo socdaba marka adeeg kugu xiran tahay inta xaba aad rabtid inaad meesha ka baxsatid marka ani kacbada iyo midka ku qoran wanka oo kale ma isticmaalayo hadda meel yani just waa idin tusayaale inaad isticmaali kartiin laakiin ani hadda ma isticmaalayo waxaan isticmaalaa insha Allah hadaan noolahay ciida dambe soo socdo oo kale aan isku diyaarina marka saa u saartid waxa u baahan tahay mar walbo ina isku keentid afarta xabo mise shanta xabo mise lixda xabo inta aad sameeysanaysid ina isku keentid loo baahan yahay okay marka bacyadii aan kalarada ku soo shubtay waaye waxaan ku korshubaa sheebkii oo meesha aan saaray oo ku qornaa sida masaajidka iyo mise nalka mise geelka nooca aad arabtid aan korkiisa saas u saara marka aan ugu shubo marka saasna waa yeeli kartaa oo hadii kalena waxa soo qaadanaysa geed fidsan oo loogu talagalay sida keega dadka sameeyaan wuxuu ugu jiraa sadka ee markaas ay gataan marka waxa loo baahan yahay ina ku tirtirtid loo baahan yahay marka tirtirtid hadhow ka fiiqdid oo ka qaadid isla markaas waa arkaysaa marka hawada ku dhaafaysa waa si adkaana adeego dhagax amal ma noqonayo bis laakiin subagiyo kasto waxa waa isoo aruurina hawada markuu ku dhaco ma tirtirmaayo marka mar walba marka marisid ku shubtid waxa loo baahan yahay ina mar walba aad isticmaashid geedkan sidii aad geedka ugu fifidin lahayd oo kugu noqon lahaa meesha dhan color oo quruxda oo sheebka oo yani uu soo bixi lahaa oo arki lahayd loo baahan yahay marka waxaan jeclahay mar walba ina idin tuso sheeb walba soo ku soo baxaayo ina idin tuso aan jeclahay hadda labada xabo waa ujeedin hadda waxaan sameynayaa hadane kuwa kale marka waxaan isticmaalayaa geedihii hadaa idin tusaa waa ogtihiin mar walba waxa loo baahan yahay inaad si fiican ugu tirtirtid kareemka kor saaran sidoo flat uu noqdo hadaa dhaaftid oo yani asagoo buuxbuuxo marka ka qaadid wixii dhan wuxuu noqonaa yani ugly uu noqonaa ma qurux badnaanayo marka waxa loo baahan yahay inaad meesha si fiican u tirtirtid hadhow marka ka qaadaysid wuxuu stampki wuxuu soo baxaa oo qurux badan waa ka ujeedin waa adigoo stamp isticmaashay laakiin wixii dhan waxa waay cream iyo cookie la waay bur waxaas waay wax color aan isticmaalo waxa waay only food color ka meesha yaalo okay hadda waxaan sameynayaa midkii ku qornaa geelka waaye sidii aan kuwaas u sameeyay oo kale ayagana u sameynaa labadan kale marka kan ugu dambeeyay ciida waxaan ku buufinaa adin tusaa hadii aad qabtid gold color waa si kormarin kartaa marka kormarisid haddana waxa soo qaadanaysaa geedka yara caag yara kor ugu tirtiraysid hadhow marka ka fiiqdid wuxuu noqonaa green iyo gold oo isku dhex jirjiro uu noqonaa waa nuura marka xitaa kuwan kale aan sameeyay hadii aad rabtid waa ka dhigi kartaa waxaan dhan aan sameeyay kulli gold ku buufin kartaa waa ka qaadi kartaa waa nuura wax dhib oo kaaga iimaanay malaha moor qurxisid moorsi yani fiicnaada leh sheyga marka ilmaha day cunayaan waxa fiican kalarada different na ugu dhigtid oo kale yani ilmana color leh raacan mar walba waxay dhahaan ilmaha kalarada zaaid ay u jecel yihiin marka aad haduu qof hadaa taa camal waxa laga yaabaa kalarada kale in aan saas u jeclaanin oo kalara caadi iska degan in aad sameystid marka cookie waa kana oo hadaa aan dubay waa qaboobay shay walba korkiisa soo saaray waa ujeedin cookie walba shapekiisa size-kiisa waay kan waa ujeedin kaas waa ujeedin nooc walba aan sameeyay waa kan wixii hadaa aan idin wada tuso dhan waa marka kan wali waa fashaq waa ujeedin wali ma qalalin
marka inuu qalalo loo baahan yahay dhaafto sidii 30 daqiiqo oo kale hawada uu ku dhaco marka kukiyaashii ilmaha uu soo diyaariyay maalinta ciida ku dar lahayd saxanka oo zaa'idka waa kuwan saan oo kale waaye ayagana say u arkaan shabadahaas u farxaan inuu maalinta ciida yahay hadee yani ciida la gaaro ee sugaan ina waxaan sameynaysiin oo kale ayagana say ay iskugu diyaariyaan ilmaha marka bokisadan oo kale qaadaysa waxa gelinaysa ama hal xabo ama 4 xabo intii adiga aad rabtid aad gelin kartaa maalinta ciida waxa u qaybin kartaa marka ilmaha jiiraankaaga siin kartaa waxa siin kartaa markaas qofkii ciid mubaarak ahaan kugu imaaday oo kale waa siin kartaa cunug waa farxa waxyaalo waxa ku qoran oo islaamiga ah ma ku qorno waxyaalo kale caadi kukiyada caadiga ma ahan marka waxa ii yaalo noocaasa ii yaalo waxa ii yaalo noocan kale hada u jeedaan noocan waxa waaye wuxuu wataa sticker yar uu wataa oo ku qoran stickerkaas handmade marka waxa waaye muslimiinta Soomaali kali ma ahan waa inta soo qabiile waxa laga yaabaa ilma cadaan inay kugu soo aadaan oo muslimiin ee family cadaan ah marka dadka cadaanka dhaqanka different aan kana laakiin diintii hal lagu yahay because dad soo muslimiin waa ama dad muslimnimo ku dhasheen waa marka in la ogeysiiyo way qofkaas inuu buskudkan yahay handmade inuu gur lagu soo sameeyay oo adi sameysay marka waxa loo baahan yahay ina sticker yar oo calaamad yani oo sheegay ina cookigan adiga guriga ku sameysay uu yahay suwaalidka uu cunugiisa uu aqriyo intuu cookiga uu siinay laakiin haduu waxba leeyahay waxa way dadka qaar kooda ajaanibta ilmahooda ma ku degdegaan oo cookiyada ma siiyaan marka saan idin sheegay walaalaheegi waa kuwan cookiyada dhan waa soo wada diyaariyay wixii waa soo wada sameeyay marka mar walba waxa loo baahan yahay ina family-gaagi mar walba yani diyaar u tahay inaad yani u sameysid maalinta ciida special marka gurigaaga ka sameynaysto cunugaagi waa farxa markuu iskuulka aado markuu meel kale aado wuxuu dhahaa ayaga ay dhahan oo kale anaka Christmas-kii aan isku diyaarinayna ya anaka ciida isku diyaarinayna aniga hooyadey mise awowgeyga cookie aan sameyn rabna ya me too aniga xataa aniga iyo waalidiinteeda cookie aan sameynayna noogu qoran ciid mubaarak we have a lot of fun yani fun badan aan qabnaa marka cunug ilmahaagi maadaama ajaanib ee la soo korayaan ee iskuul la aadayaan ee wadan qurbo joogaan mar walba waxa ilmahaaga aad tustaa mise fahansiisa adigana maalintaada ciida inuu maalin special yahay أنا لازم waa ku qasbanahay because ilmihi waxa la joognaa meel qurbaan la joognaa marka waxa dhan ay ujeedin aan sameynayo maanta waxa igu kalifay ina maamooyinka aan tuso oo Soomaalida inay ilmahooda u sameeyaan wax fiican ilmihi ay baraan dhaqankeeni diinteeni inuu ahayn wax yani iska socdo oo kale anaka naftirkeeni ina wax sameysan karno ciid soo dhaweeno يعني waxyaalo fiican aan sameysano maalinta ciid inuu special noo yahay marka cunugaagana soo bari wiilkaas iskaaga soo celiyo oo si fiican uu soo hadlo ma sha Allah thank you for watching guys aad iyo aad u mahadsantihiin intaan idin kugu soo talagalay waa idin la share gareeyay salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh